السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا رومان خيارته أنت جانك حران أنت سبلمانتك سؤال هذا. waxaan rabaa horta muuqaalka intaan gelina u mahadceliyo dhamaan khiyaarta nagu soo biirtay intii aan ka maqnaa channelka mudadii 2 isbuuc oo dambeysay waxaan ku mashquulsanaa ikhtibaaro ama imtixaan ku mashquulsanaa waxaan rabaa inaan iraado maasantihiin taageeradiina waxa nagaarsiisay kun qof wax aad u yar maaha haddaba intaan marka laga soo tago waxaan rabaa inaan xagan kaga hadlo muuqaalkan wax loo yaqaan mushkilad dad badan ka hortaagan inay wax qabtaan ama wax sameeyaan mushkiladaas oo ah wax loo yaqaan wadar ama wax la'aan maxaa ka wadnaa wadar ama wax la'aan waxaan ka wadaa laba nooc way yeelataa nooc koobaad wax loo yaqaan in la dhaho al-kamaliya ama perfectionism wax loo yaqaan oo ah qofka in uu yiraahdo wuxuu 100% ama sida aan rabay noqonaan ama uu sameeynayo sababtoo wax dhaliil ay ka iman karto marhabo taana waxa sababaysa qofka inuu sameeyo halbeegyo aad u adag iyo ahdaaf aan la xaqiijin karin haddana markuu intaas sameeyo kadib dadka dhaliishoodana uu aad uga baqdo taasoo keenaysa marka in hawl walba uu qaban lahaa ay ka hor istaagto cabsida uu ka baqayo ama cabsida uu ka qabo in sidii la rabay ay noqon wayso mar walbana uu naftiisa kuma weyliyo in uu diyaar garow ku jiro mar walbana uu soo diyaar garowgiisana weligii ma dhamaanay mar walba marna uu yiraahdo mesela kala qalabkii waa iga kala dhiman mar waxaaba iga kala dhiman marba wax in naftiisa u sheegto taasna ay marka dambe sababto in wax qabada uu la iman waayo ama waxba uu sameyn waayo haddaba dhibtaas sidee uga bixi karnaa dhibtaas wax looga bixi karaa qofka sidoo wax u qabto inuu marka hore sameeyo wax walba oo ku soo dhacaya wax walba marka uu isiraado waxaan way soo bixi karaan qaab ay ku soo bixi karaan way gaadheen inuu soo saaro unan 100% inay ku soo baxaan shardi ka dhigin sababtoo ah 100% waxa ma gaari karo hadii aan practice ama wax ka horeeya ayna jirin practice kama ka sameeyso ayaad 100% wax gaarsiin kartaa marka wax walba aad gacanta ku hayso inaad bilowdo ayaad heerka gaari kartaa waxaa jirta oraah English oo dhiirigelin oo meeshan oo kala ku haboon oo tiraada don't wait until you are ready to take an action but take an action to get ready taas macnaheedu in aad sugin inta aad ka gaarayso inta diyaar garowga ka gaarayso si aad wax u sameyso aad sameyso waxa kadibna sida aad diyaar garowga ku gaadho waxa kaloo rabaa qofka inuu isxasuusiyo mar walba in shaqadu ayna macna ku sameeyeen inta ay la egtaa marka ay ku sameynayso intee in la eg ay soconayso ama camalku oo saawada ogtihiin wax yar oo socda ayaa ka fiican wax badan oo adan go'go'a waxa macnaha ana sheegaya xadiis nabi sallallahu alayhi wasallam kuleeyahay inna ahabal a'mali ila allah adwamaha wa in qal a'maasha ilaahi waxa agtiisa loo jecel yahay kuuda socda haba yaraadaan marka qofku waxa rabaa in uu ku dadaalo waxa qabashadooda dhaliisha ka soo noqonaysana inuu diyaar garo sababtoo wax walba dhaliil bay leeyihiin dhaliisha in la saxayo laakiin dhaliishu inay shaqadiiba in la qabto ay joojiso ma aha ina ka faa'iideysataa dhaliilaha ka soo noqonay taa marka waxa isleeyahay dad badan ay ka hor taaganta noocyo badan ayay yeelan kartaa perfectionism oo qofba waxa laga yaabaa qof wax soo jeedin lahayo kale in uu leeyahay cameraman helin isagoo telefoon ku sameyn kara qofba macnaha asagoo wax badan khibrad badan ku soo jeedin kara asagoo ba darajo yar oo cilmi hoos haysta ayuu leeyahay aan xilliga gaadho aan doctorada gaadho marka waxaan isleeyahay dhinacyo badan ay yeelan kartaa taana waa wax dad badan ka hor istaagay inay bulshadooda ama dadkooda wax u qabtaan qaabka labaad wadar ama wax la'aan ee u saameeyso dadka waxay tahay qaab loo yaqaan qaab ah qofka inuu dareemo wax la yiraahdo wixii adduunka yaalo inay dhamaanayaan مثلا khayraadka adduunka inay kooban yihiin oo مثلا kala lacagta kooban tahay guusha kooban tahay wax walba kooban tahay oo dad gaar ah haday helaan dadkii kale ay ka dhamaatay taana qofka waxa ku sababaya sabab badan ay leedahay laakiin si guud qofka inuu
kusoo koro oo kale maxaa la raahdaa environment bio wuxuu yaryihiin bixeed qofka aaminayoba in mar walba ay wax saa u yaryihiin qofka taa in maxaa la raahdaa u aamino maxay ka keenaysaa waxay ka keenaysaa dhibaatooyin badan ay ku samaysaa laba qaab oo muhiim ah dhibaatada nafsadiisa ay ku keenaysaa dhibaatada dadka kale dhibaatada nafsadiisa ay ku keenaysaa marka horta waxay tahay qofka hadduu aamino wuxuu inay yaryihiin guusha qof uu guuleystaa inay guushi uu heli lahaa qayb kamid laga qaatay amaba ay ka dhamaato haddii uu siraado intanay ku ekayd inuu qofka shaqo qaban waayo uu yidhaahdaba maxaad shaqo ka qabataa haddii wixii kaa dhammaadeen ama maalan oo kale waxaa hebel baa kaaga filan adiga lagaagama baahna inuu saa isiraado qaabka labaad macnaha u saameyn karta qofkan waxay tahay inuu qaab noqdo qof dadkii darar kula jiro la dagaashan dad walbo ay wax kala dhexayaan ama ay wax ka midaysan yihiin u arka dadkii dad tartan kula jira meesha la gaadhaya ama waxa la helaya ay wax kooban yihiin lagaga hormarayo saa awgeed wuxuu isku dayaa keligii inuu wixii helo sababtoo ah haddii laga hormaro asagaan wax helayn saab u aaminaya qofki markaasuu la dagaalaya dadkii ma caawinayo dadkii taana uu xasdaya kuwii xataa ka hormara taana dhib kale ay qofka ku keenaysayo dadkii uu la shaqey lahaa haddii uu aaminsanaa lahaa in waxa dadka oo dhan ay ku wada filayiin ama wada gaadhayaan taana meesha ay ka baxsaan marka iyadana dhibaatadana qofkii u keentayo inuu hami la-aan yeelo waayo inuu dadkii de hamiga ama waxa uu kala la shaqeyn lahaa ama wax la qabsan lahaa inay ku dirto labadaaba way ku samayn kartaa haddaba dhibtaas sidee u xali karnaa qofka dhibtaa haysta horta labada mushkilood mid walba xal gaara in loo helo weyn mushkilada ah in hami la-aan ay jirto qofka waxaa laga rabaa horta inuu aamino in qof waliba ilaahay subxaana watacaala uu siiyey shakhsiyad u gaar ah qof kale oo eg aanay jirin taasoo macnaheedu tahay in waxa aad soo kordhin karto caalamkan kusoo kordhin karto cid kusoo kordhin karta aanay jirin sababtana maxay tahay sababta qof walba maskax u gaar ah ilaa ku rakibay qof nagamida qof kale sidoo u fikira ma jiro waxyaabo la iska ka kara laakiin boqolkiiba boqol wax la iska ka kara ma jiro saa awadeed qof walba kaalin ayuu kaga soo bixi kara adduunka haddii uu kaalintiisa aamino haddii kale waxa dhacay dhibtan qofka waxa laga rabaa kaalintiisa iyo waxyaabaha ku fiican yahay waxyaabaha uu qaban karo inuu horta nafsadiisa kalsoonida ay kaliya taa ay horta kaga badbaadi kara talabaad ah in dadka kale oo aragtay inay wax dhamaanayaan waxa weeye ina aaminto in wax walba qof helaa ay u qadarnaayeen oo wax uu adiga ka dhacay ahayn waxa qofka u qadarnaa oo helayna hadii uu macnaha hadii aad kun jeer dadaalku bixiyay ka badan bixileed inaad gaadeen ina aaminto sidaas ayaa balance ugu sameyn kartaa marka shaqadiina ina aaminto in lagu baahan yahay qofkii markuu wax helana inaad ugu hambaleyso ama aanad u nicin aad tiraado maxaa la raahdaa wax u qadaran ilaahay siiyaha adna intee ku qadarneyd gurigaaga xataa kugu imanaysa labadaas ayaa maxaa la raahdaa looga badbaadi karaa marka waxaa is leeyahay waa laba mushkiladood dad badan qabsan kara kana hor istaagi kara in ay riyooyinkooda ama waxa ay rabaan xaqiijiyaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkan waxaan is leeyahay labada mushkiladood waa mushkilado jira dad badan haysta noocyo badan ayayna yeeshaan macnaha qaabkan u sheegay oo kaliya maaha 100 nooc ayay yeelan kartaa qof baa مثلا oo kale ku leedahay waxa ma samaysid iyo inta iga dhiman hadii ay idhamisanaaleed waa sameey lahaa ay ku leeyahay inta dib ka imanaysa si bilow noocyo badan ay yeelan kartaa qof baa hadda مثلا oo kale barnaamij si fiican u yaqaan iyo barnaamijkan soo dub iyo saas iga dhiman marka muhiimaddu waxay tahay in wax la bilaabo shaqada hada rabto qabo hadii aad wax inaad tiraado rabto dadka u faa'iideey intaas aan rabaa dhiirigelintan yar inaan muuqaalkan ku yiraahdo qofka sababtoo ah wax yar mar walba wax la'aan ay ka fiican yihiin hadii aad aragto xal kale ama dhibaatooyinkaas xalka lagu wajihi karo commentiga noogu soo sheeg hadii xataa mushkilada kale oo taa la xiriira ama aan ka tagay ay jiraan fadlan xasuusi commentiga igu xasuusi ka jawaabi doona aadi adna idin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh